Suudaan waa dal madax bannaan oo ku yaalla waqooyi bari qaaradda Afrika dhinaca waqooyi. Waxa uu xad kala wadaagaa dalka Masar dhinaca waqooyi bari, Badda Cas, dhinaca waqooyi galbeed dalka Liibiya, dhinaca galbeed dalka Jaad, dhinaca koonfur dalka Suudaanta Koonfureed, dhinaca koonfur bari dalka Itoobiya, dhinaca koonfur galbeed Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika iyo dhinaca bari oo xad kala wadaaga dalka Eritrea. Laga soo bilaabo 1898, Suudaan waxaa si wada jir ah u maamuli jiray dalalka Ingiriiska iyo Masar. Halgan dheer kadib, waxa ay ugu dambeyntii madax-bannaanidooda qaateen 1 Janaayo 1956. Ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee dalka Suudaan waxaa noqday Ismaaciil al-Azhari. Caasimadda dalka iyo magaalada ugu weyn waxaa la yiraahdaa Khartoum, waxaana dhex mara oo ku kulma labada webi ee la kala yiraahdo Niilka Buluugga ah iyo Niilka Cad. Waxa ay leeyihiin biyo-xireennada Sanaal iyo Rasinas ee Niilka Buluugga ah iyo biyo-xireenka Jabal Awliya ee Niilka Cad. Waxaa sidaas oo kale jiro harada Nubiya ee ku taalla xuduudda u dhaxaysa dalalka Suudaan iyo Masar. Magaalooyinka kale ee waaweyn waxaa ka mid ah Port Sudan, Dongola, Kassala, Gadaref iyo kuwo kale. Baaxadda dhulka Suudaan waxaa lagu qiyaasaa 1,886,068 kiilomitir iskuweer. Tirakoоб la sameeyay 2018 waxaa la ogaaday in dadka ku nool dalka Suudaan ay tiradoodu dhan tahay 41,592,539 qof. Luqadaha rasmiga ah ee dalka Suudaan waa Carabi iyo Ingiriis. Suudaan waa dal Muslim Sunni ah. Lacagta laga isticmaalo dalka Suudaan waxaa la yiraahdaa Ganiga Suudaan. Laf-dhabarka dhaqaalaha Suudaan waxa uu ku xiran yahay wax soo saarka beeraha iyo saliidda. Suudaan waxa ay xubin ka tahay ururada ay ka mid yihiin Ururka Jaamacadda Carabta, Ururka Iskaashiga Islaamka, Urur Goboleedka IGAD, Midowga Afrika iyo Ururka Qaramada Midoobay. Walaal haddii nagu cusubtaa subscribe, haddii hore noola joogtana like and comment. waana ku mahadsantihiin daawashadiina. mahadsanidin la socdana barnaamijyadan oo kaleeto oo xiiso badan inaan idiin soo jeedino. waana ku mahadsantihiin daawashadiina.